gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineeriisu ayaa maanta dadweynaha u tiro badan farxadda maalinta labaad ee ciida kula qaatay degmada Daynile gaar ahaan xarunta dalxiiska ee Tropical duqa Muqdisho waxa booqashadiisa ku weerinayay xildhibaan Mustafa Shaqaale Dhuxlo oo kamid ah mudanayaasha golaha shacabka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiin kale iyagoo halkaasi kula damaashaadayay dadweyne ka kala yimid qaybaha kala duwan ee degmooyinka gobolka Banaadir waxayna dadka isugu yimid xarunta Tropical u badnaayeen caruur iyo dhalinyaro kuwaasi oo si kalsooni leh sawir ula galayay madaxdooda gudoomiyaha degmada Daynile Cabdiweli Nuur Faarax ayaa tilmaamay in ay aad ugu faraxsan yihiin booqashada wafdiga uu duqa Muqdisho hogaaminayay tan waxaan ugu talagalnay kaliya Ciid Mubaarak ciidaas oo aan ugu talagalnay inay dadka magaalada Muqdisho ku nool qaybo badan oo kamid ah ay nagala qayb qaataan haday yihiin mas'uuliyiinta haday yihiin arrimaha bulshada iyo shacabka Sareegaas Cabdullaahi Maxamuud Gaafo oo horay xilal kala duwan uga soo qabtay dawladda Soomaaliya ayaa ka hadlay sida dadka reer Daynile ay uga qayb qaateen la dagaalanka argagixisada Daynile waxay aad meesha ugu shidada badan ugu dhibaatada badan leh cadawga Soomaaliyeed iyo shabaabka ay deganaa jireen waxa looga saaray waxa way maahan xoog kaliya waxa looga saaray dadka halkan deganaa sheegay oo yiri waa halkan ku jira la dagaalamay iska dhacdeeyeen marka abaalgudkooda inay helaan oo degmada dhismaha laga rabo iska raba xildhibaan Cabdi Shariic Ciyaar Jecel iyo xildhibaan Mustafa Shaqaale Dhuxlo ayaa kamid ahaa mas'uuliyiintii ka hadlay goobta waxaan markaa codsanaynaa wixii hadda ka dambeeya iyadoo nabadgelyo la sugayo tababar noocaas in shacabka haddii alla ku idmaayo loo fududeeyo iyagoo jidka loo furo inaa waa rajeynaya qaar baan la kaftamayay qorayay oo dhinaca kale xumaanta ka arkay jidadka xiran markaasaan ku yiri haddii jidadkii la xiray waxaa diidaya oo dadna aysan naga dhiman qaraxina cid ku dhimanayn in la lugeeyo ilaa caafimaadka ku jira dhaqaatiirta noo qortaan ku lahaa micnaha magaciisa degmada Daynile waxaa muuqata inay tahay degmada aad iyo aad nabad u ah waxaa kaloo muuqata runtii inaan saxan iyo runtii udgoon fara badan inay dadka halkan joogay dareemayaan waa maasantiin aniga shid gaar ah runtii farxad igu tahay inaan xildhibaankiya maanta halkaan inaan marti fara badan ku soo dhaweeyo culaysyada ka jira degmada College General Gaaf waa ka hadlay waa soo dhaweeyaa waana taageeraa mudana gudoomiye arrinta runtii jidka aad loo soo celceliyay maanta waxaan jeclaanahay wuxuuna in la bilaabo si dadka deegaankan joogay u dareemaan sida aad ugu diyaarsan tihiin gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineeriisu ayaa tilmaamay in Muqdisho ay mudan tahay sidii ay ula mid noqon lahayd caasimadaha dhigeeda waxaan kaloo ballan qaadaynaa anaga maamulka gobolka Banaadir haddaan nahay horumarka caasimadda waxay noo tahay ahmiyad gaar ah ayay noo leedahay waad aragteen hore waxaan u bilaabnay in dhismooyinka wadooyinka oo aan wadooyin fulinay qaarna dhamaaday qaarna socdo qorshahan ay noogu jirto wadadan dheer ee Daynile halbowlo u ah muhiimna u ah isu socodka bulshada muhiimna u ah kobaca